waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay bandhiga carweedka Muqdisho Job Fair kaas oo sanadkii saddexaad la qabanayo. Bandhiga Muqdisho Job Fair ayaa ka shaqeeya xal u raadinta iyo isku xirka shaqada iyo shaqadoonka. Waxaa bandhiga ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Xamza Saciid Xamza, wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Saara Maxamed Xaaji, xubno kale oo ka socday dowladda federaalka, aqoon-yahano, ganacsato iyo dhalinyaro fara badan oo ka mid ahaa dadka bandhiga ka soo qayb galay. ugu horeyntii waxaa bandhiga furay wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Saara Maxamed Xaaji, waxaana ay bogaadisay dhalinyarada isku xilqaantay inay ka shaqeeyaan xal u helidda shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Allah barnaamijkan waxaan u rajeynayaa khayr fara badan qoladii dhalinyarada hidaadaheynaysay. waxaan maleynayaa khudbado dhaadheer iyo uguma soo talagelin, laakiin waa u baarakeynaa. Allah ha u baarakeeyo inta waday qofka bini aadamka inaad adigu noolaato ma qurux badna. iska noolaan dhahnaa anagu qofka keligii wax cuna ee soo toosa ee caloosha keligii gashada ee maxaan ku lahaa $1 aan walaalkiina waxba ka siin iska noola la yiraahdaa. qofku inuu noolaado in lala noolaadaa ka fiican oo qofka walaalkiisa uu caawiyo oo dadka uu wax taro. almuhim waxaan leeyahay barakallahu fiikum, Allah idin barakeeyo. barnaamijka Ilaahay maxaa subhanahu wa ta'ala meesha u khayr badan Allah gaarsiiyo. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Xamza Saciid Xamza oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhibaatada shaqo yarida ay tahay in qof walba uu rabo in uu xafiis fariisto isla markaana laga tagay farsamadii gacanta. wadanka waxaad u malaysaa in farsamada aad u yaraatay. qof kasta wuxuu ku hanweyn yahay maanta inuu xafiis fariisto, xafiis wadan ma hormariyo. orintan ay sheegaya sababta waxaan xasuustaa maalin meel aan wax ka maqlay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Margaret Thatcher waxay la kulantay CEO-da Sony. markaas waxay weydiisay seen ku hormarin karaa wadankan haddaad rabtid inaad hormarisid waxaad mar kasta kalsooniga siistaa farsamo yaqaanka. anagana waxaan nahay bulsho weyn oo shaqada maartay farsamada ka caawiyo. maanta haddaa kaba toleysid waxaa lagu leeyahay ninkaan waa kaba tol. bini aadamka suuxii markuu hurdada ka soo kaco intuusan musqusha galin waa cadeeyo kabuu gashtaa. farsamadaas wadankan waa ka jiray, dhowr warshadood ayaa ka jiray. maanta warshadaas waa wada xiran yihiin saas ogsoontiin. ninkaas beru tumaa lagu leeyahay, ceebaan u aragnaa. waa farsamo. gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali Ayaanle oo la hadlayay dhalinyarada bandhiga ka soo qayb gashay ayaa kula dardaarmay in qof kasta looga baahan yahay inuusan guriga fariisan isla markaana uu dhaqdhaqaaq sameeyo si uu shaqo ku helo. aniga 3 bilood ka hor mise 4 bilood ka hor waa laga yaabaa inaan dadaal ku jiray, laakiin halkan aan maanta joogo ma aan joogin. laakiin waxaan aaminsanahay 99% inaan aniga lahaa awoodda aan ku imaaday iyo kartida aan ku imaaday. waayo qof meel iska fadhiyo cidna ma soo qaadateen. qofku markii uu asaga isbushgareeyo, qofka yiraahdo hal iyo riixo quality-giisa lagu kalsoon yahay, qofka ku wada xataa kama cabsanayo. hadduu og yahay waxa gashay waxa gudo oo ku riixi karaa, waxna uu kula qaban karaa. waxaad ogtihiin qof walbo dariskiisa iyo asxaabtiisa dad 5 sano 4 sano 3 sano ka hor jaamacada ka baxay, guryaha jooga, sportiska iyo ku mashquulsan kubadda cagta. qofka markii la weydiin wuxuu ku leeyahay wadankan shaqo ma taalo. aniga marna uma aaminin midaas. waxaa jiro shakhsiyaad 3-4 meel ka shaqeeya. hadda waa shakhsiyaad 3 meel 4 meel ka shaqeeya. dadkaasi kaama aabo fiicna, kaama karti badna, ee kaliya way ka dhiiranaan badan yihiin, way galgal badan yihiin. meesha aad rabtid inaad tagto dadkeeda la saaxiib. intaas waa muhiimadu. gabagabadii bandhiga ayaan waxaa la hadalnay Fatxi Ibraahim Xuseen oo ahayd wakiil ka socday maalgeliyaasha sanadkan ee Muqdisho Job Fair. waxaan ugu muhiimsan maanta Job Fair-ka aanu keenayna aanu soo bandhignaa ardayda aanu ku dhiirigelinayna in xirfadaha ay soo iskuulaadka iyo jaamacadaha institutionada kala duwan ee waxbarashada bixiya in waxyaabo life skills aanay lahayn. marka anaga Soomaali istamahan waxaan kaga qayb qaadanaynaa in aanu life skills siina ardayda iyo kale wixii oo theory xagga iskuulada iyo jaamacadaha kala imaneen anaguna practically baanu siinaynaa. ugu dambeyntii Yuusuf Maxamuud oo ah agaasimaha Muqdisho Job Fair ayaa inooga waramay waxyaabaha ay qabato Muqdisho Job Fair. waxa loogu talagalay ama loo aasaasay in madal u noqoto nala iskuna keeno dhalinyarada shaqaawa doonka ah
iyo dadka shaqada bixiyo kambaniyada ama ururada ee loo shaqaynayo si macnaha ay ugu noqoto meel isku xir u ah la isku wareyso fursadaha iyo caqabadaha ka jira shaqo la'aanta waddanka waxaan aad iyo aad ula soconaa ama ognahay in shaqadu sida maanta ay tahay waddanka iyo rayidka dhalinyaronimadu inaysan isku mid ahayn laakiin waxaan rabnaa in abuurno lambar iyo baahi sax ah ee jirto in macnaha wax laga turjumi karo go'aan lagu gaari karo insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo